daawadayaal kusoo dhawaada calansida media fadlan haddii aan ugu cusub tahay subscribe saar gambeelka furada wararkii ugu dambeeyay ciidamada dowladda Soomaaliya oo soo afjara weerarkii khasaaraha badan dhaliyay hotel SYL isla markaasina shabaab oo ku faantay hase ahaatee wararkii ugu dambeeyay ee daawadayaal faahfaahinada kala duwaneed qaabkii loo weeraray sida ugu suurta gashay taliska booliska dhammaan ayaan soo wada qaadanaynaa insha Allah haddii rabbi qadaro fadlan nala joogo subscribe saar qaabkii loo soo afjaray haddii aan ku bilaawno iyo qaabkii shabaabka u soo weerareen ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa abaarkowdii xalay xilliga Muqdisho soo afjaray howlgalladii hotel SYL Muqdisho oo fiidnimadii xalay ay weerareen maleeshiyaad ka tirsan ururka Al-Shabaab isla markaasina 5 dagaalyahano lagu tilmaamay ciidamada dowladda ayaa ku guuleystay inay dilaan dhammaan 5 nin ee shabaabka ahaa ee weerarka ka dambeysay sida uu sheegay afhayeenka dowladda Soomaaliya Ismaaciil Mukhtaar shantanin ayaa saddex ka mid ah waxaa la dilay waxayna wax yar kadib markii weerarka uu bilowday hase yeeshee laba ka mid ah ayaa saacado qaatay in la dilo balse ugu dambeyntii halkaasi lagu qaarijiyay raggan oo ku hubaysnaa qoryaha darandooriga u dhacay iyo bambaanooyinka gacanta laga tuuro ayaa waxa uu suurta gashay inay kor u fuulaan dhismaha hotelka halkaasi oo ay muddo saacadaha saarnaayeen maadaama qaybta kore ee ku taala meel shub ah isla markaasina difaac adag laga gali karo afhayeenku waxa uu sheegay inay sidoo kale ay dhinteen 5 qof oo ay ku jiraan 2 ruux oo shacab ah iyo 3 ka mid ah askartii howlgallada badbaadada u fulisay ka fulinaysay isla markaasina difaacaysay wararka ayaa inta ku daraya in khasaaraha dhimashada ay ka badan tahay tirada haatan la sheegay waxaana sidoo kale jirta tiro dad ah oo ku dhaawacmay weerarkaasi sida ay warbaahinta qaar soo tabiyeen weerarka ayaa bilowday daqiiqado ka hor 7 fiidnimo ee xilliga Muqdisho waxaana la sheegay in maleeshiyaadka ay qaar rasaasta ku fureen ciidamada ilaalada madaxtooyada halka kuwa kalena ay galeen hotelka SYL maleeshiyada Al-Shabaab ayaa waxay markii hore la dagaalamayeen ciidamada booliska iyo ilaalada hotelka waxaana dagaalka dib ugu soo biiray ciidamada xoogga dalka ilaalada madaxtooyada iyo kuwa sida gaarka u tababaran ee gaashaan ciidamada ayaa intii uu weerarka socday waxay soo samata bixiyeen 82 qof sida ay marsi horeysay idaacadaha ay sheegeen gaar ahaan General Sakiya Xuseen Axmed oo ah taliye ku-xigeenka ciidamada booliska ay sheegtay shabaabkii ayaa waxa muuqata in ay wax ka bedeleen weeraradii ay ku qaadi jireen hoteelada magaalada Muqdisho oo ku bilaaban jiray qaraxyo gawaari ay ka soo buuxiyaan laakiin weerarkii xalay oo ku bilowday dagaal toos ah oo maleeshiyaadka Al-Shabaab ay halkaas lug ku soo galeen ayaguna kaartadii hore u bedelay haddaba tani ayaa noqonaysa midii lala yaabka badneed ee siyaasiyiinta mucaaradka ay falal kala duwan ka bixiyaan haddaba qaab kale haddii aan eegno dhinaca kale sidee Al-Shabaab ku galeen hotel SYL maxaase kadib dhacay arrintaasi yaa u fududeeyay baaratadii fiidnimo ee xalay dagaalyahanada hubeysan ee ka tirsan ururka Al-Shabaab ayaa gudaha u galay hotelka SYL magaalada Muqdisho kaas oo ku dhex yaalo xeyndaabka laga ilaaliyo madaxtooyada fila Soomaaliya aadna loo ilaaliyo weerarkan oo ka duwanaa kuwii laga bartay Al-Shabaab oo ku bilaaban jiray qaraxyo iyo miinooyin oo isdaba yaalla ee meesha ay galayaan dagaalyahanadooda uga hor mari jiray ayaa waxaa fuliyay 5 nin oo soo xirtay doodaha ciidanka booliska ummadda Soomaaliyeed hase ahaatee arrintaasi ayaa waxaa la leeyahay mid fajac ku noqotay raggan soo qaaday weerarka ka yimid dhinaca isgoyska ceelgaabta ayaa si ay gudaha u galaan hotelka waxay iyaga iska dhigayaan jaranjaro ka soo boodeen derbiga dheer ee dhabarka dambe uga wareegsan hotelka SYL laba ka mid ah 5 dagaalyahano ayaa goobtaasi lagu toogtay waxaana gudaha u galay hotelka 3 ka mid ah dagaalyahanada hubeysan kuwaas oo toogasho ka bilaabay banaanka iyo gudaha hotelka isla markaasina dadka mid u gaarsanayay hotelka waxaa ka dhacay 2 xafladood oo mid ahayd bandhiga buugaag lagu soo bandhigay halka kan kale ay ahayd casho sharaf loo sameeyay siyaasiyiin iyo waxgarad maanta Muqdisho ugu qayb galay caleema saarka gudoomiyaha midnimada beelaha Habargidil Professor Cabdulqaadir Maxamed Shirwac 3 nin oo ay u suurta gashay inay gudaha u galaan hotelka waxay ugu horeyntiiba toogteen 3 oday oo ka mid ah odayaashii ku casubnaa goobta oo ay kulmeen barxadda hore ee hotelka isla markaasina shabaabkii 3 oday ku tiriyeen
dagaalamayaashan ayaa u gudbay gudaha waxayna ka bilaabeen toogasho inkastoo dadkii badankoodu ay carareen qaarna qolal isku soo xireen durbadiiba waxaa gudaha u galay hoteelka ciidamada koofiya casta ilaalada madaxtooyada oo watay gaadiidka dagaalka waxayna bannaanka u soo saareen dad badan siyaasiyiin iyo ku doonsanaa qeybo ka mid ah hoteelka ay ku jiraan rag xildhibaano ah mid ka mid ah saraakiisha hogaaminaya ciidamada ilaalada madaxtooyada ee ka howlanaa soo afjaridda weerarkaasi ayaa warbaahinta u sheegay in saddexda dagaalame ee ciidamada ay ka hormareen qaybta sare ee hoteelka halkaas oo ay sida uu sheegeen in ay doonayeen inay ka dagaalamaan waxaa joognay oo yidhi meel aan ka fogeyn hoteelka markaa fahnay in la galay hoteelka waxaan degdeg ku galnay oo yidhi hoteelka ugu horreyntiiba waxay indhahayga qabteen meydadka saddex oday oo yaalla bannaanka hore ee hoteelka gudaha ayaa sii galnay waxaana aragnay ilaaladii hoteelka oo dagaalamaya iyo raggii oo u gudbay gudaha waxaana jaranjarooyin ku fuulnay oo yidhi qaybta hore ee hoteelka ayuu yidhi sargaalkani isagoo hadalkiisa sii wata ayuu yidhi markii aan xaqiijinay inaysan u gudbin karo wuxuu yidhi inaanan u gudbin karin uu yidhi waxa uu soo degnay hoos qaybta dhexe ayaan uga nimid oo ay cabbaar nagula dagaalameen waxyar kadib waxay isku dayeen inay hoos u degaan oo baxsadaan askari ka tirsan ilaalada hoteelka ayay hoos ku dileen waxayna isku dayeen inay ka boodaan derbiga dambe hal mid ayaana halkaasi uga dilnay waxaana soo haray laba kale oo aad u hubaysan waxyar kadibna bam gacmeed ayay nagu soo tuureen ayuu yidhi mid ka mid ah saraakiisha hogaaminaysa ciidamada la tacaalaya weerarkaasi saraakiishan oo naga dalbaday inaan adeegsan magacooda ayaa sheegay in labadii nin ee soo hartay ay galeen guri dambe oo shub ah hub kasta oo loo adeegsadana uusan waxba ka taraynin halkaasi oo ay ka soo ridayeen rasaastii bambaanooyinka culculus ay wateen ayaa layidhi labadaas dagaalyahana ayaa weli ka dagaalamayay hoteelka inkastoo la xakameeyey waxyeeladooda lana soo badbaadiyey inta badan dadkii ku sugnaa goobta ayaa layidhi hase haatee qaabkaasi ayuu weerarku dhacay dhinaca kale taliska booliiska oo war la yaab leh ka soo saaray halka dadka kalena ay sheegeen in ay dad badan ku dhinteen taliska ciidamada booliiska Soomaaliya ayaa warbixin rasmi ah ka soo saaray weerarkii kooxda al-shabaab ay xalay ku qaadeen hoteelka Iswaayeel ee magaalada Muqdisho hoos haddaba war saxaafadeedkii ayay hoos ku soo qoreen 10 December ayay dhaheen waxaa la weeraray hoteelka Iswaayeel saakay oo ah 11 December waxaa ciidamadeena geesiyaasha ay soo afjareen weerarkii kooxda argagixisada ay ku soo qaadeen hoteelka Iswaayeel magaalada Muqdisho iyagoo soo badbaadiyay shacab iyo mas'uuliyiin kor u dhaafaya 80 oo ku jiraan gudaha markii weerarka soo dhacay kuwaas oo kamid ah xildhibaano federaalka Soomaaliya waxaa weerarka soo qaaday 5 qof oo argagixisada u soo dirtay dhagarta ummadda Soomaaliyeed kuwaas oo dhammaan la wada dilay ayay dhaheen waxaa xusid mudan in shacabka Soomaaliyeed ay yihiin kuwa jecel nabadda ayayna si buuxda uga qayb qaateen muddooyinkii la soo dhaafay in laga hortago dhagarta kooxda argagixisada ee al-shabaab waxaan shacabka ka codsanaynaa in ay sii xoojiyaan wada shaqaynta wanaagsan ee ay haatan la leeyihiin laamaha amniga annaga oo ugu baaqayna in ay muujiyaan midnimo iyo wadajir ayaa lagu yidhi war-saxaafadeedka waxaa sidoo kale ku dhiirigelinaynaa inay raacaan fariinaha ay hay-adaha amniga soo diraan ciidamada qalabka sida waxaan ku bogaadinaynaa dadaalkii wax ku oolka ahaa iyo howlgalladii ay ku beegsadeen argagixisada muddooyinkii lasoo dhaafay taasi oo saameynteeda wanaagsan laga dareemay magaalada Muqdisho iyo labada Shabeelle ayaa la yidhi khasaaraha dhimashada sidaan xaqiijinay waa 2 askari oo ka tirsan ciidamada qalabka sida iyo 3 shacab ah sidoo kale waxaa dhaawac fudud soo gaaray 9 qof oo shacab iyo askar ah ayaa warbixinta lagu yidhi hase ahaatee dadka qaarkood ayaa waxay dhahayaan isbitaalada dhaawaca la geeyey waa uu ka badan yahay dhimashadana waa ay ka badan tahay inta ay booliiska sheegeen ugu dambeyntii waxaa idinka codsanaynaa ayay dhaheen booliiska inaan u duceyno wuxuu yidhi inaad u duceysaan dadkii ku shahiiday weerarkii ay ka mid yihiin shuhado ka tirsan ciidamada qalabka sida iyo shacabka annaga oo tacsi iyo tiiraanyabo la wadaagayna qoysaskii iyo guud ahaan shacabka Soomaaliyeed ayaa la yidhi hase ahaatee dad badan ayaa arrintaani war badan iska weydiiyey maadaama siyaasiyiin badan ay iminka soo hadal qaadeen meeshaasi oo 100 tilaabo keliya u jirta fila Soomaaliya halka laga waardiyeeyo haddii 300 oo tilaabo la yidhaahdeen hoyga farmaajo u degan yahay isku jiraan xildhibaan kasta marka uu soo marayo halkaas ama hoteelka oo rabo waxaa la leeyahay 5
ilaa 6 boonti ayaa sunkiisa lagu baaraya hase ahaatee sababta ay ninkaas u soo galeen waa shirka ayaa la leeyahay shabaabka iyo waardiyaasha madaxtooyada iyo aagaas jooga waa shirka ayaa la leeyahay inta badan hase ahaatee warar iskhilaafsan ayaa soo baxaya sidoo kale siyaasiyiin badan ayaa ka hadlay qeybahayna dambe ayaad ku daawan doontaa fadlan subscribe saar calansida media oo kambeelka furo oo nala joog haddii aan la idmo